السلام عليكم أصحابتي quruxda badan waa idin salaam meel walbo aad joogtaan maanta waxaan idin wadaa qaabka aan usoo qurxiyo keegaas quruxda badan qaabkaan u sameeyo ubaxaaseti maasha Allah waxaan ka sameeyay koleet way idinkugu jiraan waa sokortii sidaas quruxda badan inoogu soo baxday maasha Allah iyo qaabka aan kreemka u mariyay inta waa idin wada insha Allah tacaala daawasho wakaasa marka hore waxaan soo qaatay keegii waxaan rabaa inaan jajaro kaleeto fiidiyoga waan gaagaabiyey oradan ka dhigay waayo inuu idinku sii dheeraado marabin waan jajarayaa dartan insha Allah tacaala waxaan ka jarayaa qaybta kore qaybta hoos meesha dhinacyada kaleetood sababta uga jarayna wax kale ma ahan uu adag yahay ama ka kan yahay sida u taqaanid qaybta kore kale ama qaybta dhinacyada marka kreemka ma qabanayo hadduu keega dhinacyadiisa adag ka jarin keega kreemka ma ku qabanayo soo marka waxaan mar walba waa inaan ka jartaa waxaan jeclaystaa maahan ama waxaan sameeyay aniga ma ahan waa mar walba inaan ka jartaa haddaad ka jarin keegaaseti wuxuu noqonayaa sokorta way kaa jajabaysaa way kaa jeexmaysaa inta meeshaas adag qabato waa kreemka ma qabanayo marka saas u jajarayaa harjina inaa fahanteen macnaha sababta aan jajarayo keega waa haddii aad jajarin ma ku suurta galayso waxa rabtid ka bacda waa ka soo dhameeyay waxaan u qaybinayaa 4 dhaxda jajarayo macnaha 4taas qaybood dhexdooda waxaan rabaa inaan mariyo kreemka qaybta koowaad aan jaray markaad jaraysid waa inaad gacantaada sas dusha uga haysid si aysan mindida uga soo dhex bixin ama uusan kaaga qalocsamin waayo waxaa u jaraysa waa khafiif zaa'id weyn ma ahan haddii aad gacantaada ka dulqaadid waxaa laga yaabaa inay mindida gees uga baxdo ama qalad kale ka dhaco marka gacantaadana ilaasho keegana ilaali inuusan kaa jabin ama kaa jarmin oo si qaldan kaa noqonin adi kale dadaalkaada ku xiran tahay wax walba iyo isku daygaaga meesha nadiifsanayna وكنا كأكي أفتس قيبة وسوق قيبي هادنا waxaan marsan doonaa caano iyo sokor isku soo waxay waan ku qoynayaa si kreemka uusan uga dagin keegku qalalan yahay marka ku qoynayaa waa caano natural oo caadi ah iyo wax yar sokor ah bas kreemka marinayaa tartan waa qaybta ugu horeysay qaybta ugu hooseysa keega on waaye ma ahan qaybihii kormaase u kala koreysa anjeerta u kala koreysa loo cunaa maahan keegsa u kala koreeyo isku dul saaraya ma jirto iyadana isku kala koreeyo la isku wadaya waa simaya mar walba hadda waa qaybtii saddexaad qaybtii koowaad qaybtii labaad qaybtii saddexaad waa qayb uu idinku sii dheeraanaya fiidiyoga hadda qayb walba niituso kale waa u jeedin sida u marina waa isku mid mar walba caanahaas ku shubaya iyo sokortaasiti waxaan marinayaa kreemkaas oo kaliya bes kreemkan waan ku simayo waxaan isku dayaa inaan ku simo mar walba aan marinayo insha Allah sidaas la ku wadaya
creamkan inaa isweydiinaysaan laga yaabaa waa isla creamka idiin soo geliyay videogii ka horeeyay ma ahan cream ka duwan waa isla isaga una talaajada gashtay keegii markuu ii qabobay ayaan duubayaa insha Allah waa isla isagii le wax kala u mudan qaybtan oo hadda aan tusaayay waa qaybtii ugu koreysay ma kormarinaa meeshii koreysay waxaan kormarinaa meeshii hooseysay si uu keegu geesihiisa u sinmo oo geesihiisa kor ugu soo qaadmo oo sokorta dhulta iskaga celin karo waxaan rajaynayaa inaad fahantay waa kana talaajada soo geliyay 30 daqiiqo kadib waa kana hadirtaan waxaan rabaa baanaha aan seetay kaligiis waan shiiday saan ku soo baxay waxaan rabaa marka inaan mariyo ship cream waa la dhahaa baanan waa la dhahaa afkal ma ku kasay been ma fiicna af Soomaali ma ku kasay waa marinayaa waa mariyay hadda waxaan rabaa inaan sokortii fidsado sokorta iyadana isla channelkan ay ku jirtaa sida u suubiyo iyo qaabka u suubiyo waa ka heli kartaa marka bacdaaseti waa plastic sokorta waxay ka dhigaysaa kuleel inaysan ka qalalin ee uu noqonaysa sabab dhulkan way ku dhigan tahay haddaadan haysanin muhiim ma ahan laakiin ogow adin maanta dhan waxay kugu noqonaysaa orod ina isla markii aad fidisid isla markii aad hore ka saartid isla minute haddii kala tad isla minute-kaas haddaa alwaax dushiisa ama meel kale dusheeda aad ku fidsatid sokorta way ka adkaanaysaa dhaqso waliba hal daqiiqa hadday leerta aragta sokorta aysan bacdan saarnayn way ka adkaanaysaa laakiin bacdaneeti adi inta fidsanaysid way ku jilcanaanaysaa kole sokor la qasan waa dareemi kartaa waliba gelatina lagu sii qasay inay dhaqsi qalaleyso hadda waa kana sokortii hadda la soo sameeyay ma aha wax aan maalmo ka hor soo sameeyay waayo waxaa rabaa maanta inaan wax dhan isku bixis aan ka dhigo ma jirto marka labadaas qaybood waxaan ka dhigan rabaa pink iyo jaallo qaybtaas hadda dhulka iyo taashan waxaa rabaa cad inaan ka dhigo oo keegii talaajada iigu jira bahnihii aan soo mariyay aan dul saaro hadduu Allah awood la karaal noqdo waan fidinayaa insha Allah waa kaasa waa soo fidiyay adarta sidaas ka soo dhigay qafiifka inay muhiimadu waxay tahay aweyn u fidisid oo keega afartiisa dhinac ay ka dagayso ما شاء الله قياس أهان أنا ويقول دقيسة ما أقول لكم إلى أركي دونتين الحمد لله وكنا ويكدك فرتي سرينا هذا كيك قياسنا ساقيت كسيريسك أو دوشي سلوه حين هذا هيسن مهم عن قعنت هذا مهم هو هذا هليسيت لكن هذا هيسنين وحما وحس كرقيس أونلاين كرواك قدان كرتا أو لوغو تلقى لي سكرتا وح قاس لهذا هاي كلته وقابك لوغو شرحايو سيدا لوغو مريناي سيدا لوغو حيناي gacantaadana saas wax waxaan kartaa gacantaadana waa muhiim geedkaasna waa muhiim hadaa labada isla heli kartid hadaad heli karin gacantaada ku isticmaal saas ugu samee gacantaada ku sin inaysan ka yeelanin wax laalaab ah isku day laalaabkaas hadaa arkaysan oo kale isku day inaysan ka yeelanin kadibna isku day inaad si fiican u sinto kole tortada waxaan kasoo bixiyay talaajada markaan baanaha mariyay ka bacdi waxaan galay talaajada هذا waxay ku jirtaa 40 daqiiqo camal haddana waxaan fidsan qaybtii pinkiga ahayd oo walaashay magaceeda aan kala qori rabay magaca walaasheed waxaan ku soo sameystay kaarto ama xaanshi aan si haamsi oo qoranta ku soo qoray kadibna sokorta wax weyn ma ahan adi waxaan ka bacdina si haamsi u qorneeday waxaan isku dayayaa inaan mindidaas ku jaro كاميرا مركي اللي وها ما كان وعبصونا يعني لأن ينقنيس قروح لكن مهمة واحد هاي إن حانش وسجرتين مع على المجعرتين أكو حست قيبتان وقيبتي أنا ربينا وبحكي سمايو وحن سمينا يا وحن كسجر جدي يريسو كوا بنت أو أي كيك لو حستو كبعد نسيت سأوصو كوا يا isku dulqa qabanaya adi taas kugu dulqa qabanaya kala qaybta orod ma ka dhigeen macna si u fahantiin waa wax yar oo iska adag yahay waxa sameyntiisa haddana kul fuqaaya
tan kale waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysan sidee iskugu dhadhajinaysaa. wax kale ma isku dhadhajinaa, biyo cad oo caadi oo natural ah, biyo cad oo natural ah unbaa marinaya meesha rabin iska dhigto, kadibna isqabsanaysaa. waa sokor iyadaaba dhegdheg ah. marka rabi inaan magaca ku qoro kaletood, magaca biyo mariyay kabacdi sokortii hoose la dul saaray dhag waba iskaga dhegabo. way jirtaa koola loogu talagalo lagu dhajiyo, laakiin aan kooladaas ma haysanin. soo gadan kartaa adiga hadaad rabtid. daawashadeena quruxda badan iyo waqtigeena quruxda badan waa ku mahadsanteen asxaabteeda quruxda badan. haddii aad hore noola joogtaada waa mahadsantahay. haddaad nagu cusubtana please subscribe noo dheh, like, commentiga waa dhiirigelinteena. hadda waxaan marinayaa waa biyihii cadka ahaa, koleeto waa jarayaa. saas usii weyn ma ahan, laakiin waxaa laga yaabaa waqti inay kugu qaadato. kole muhiimad waa intaas yarta ah. kaas kuwaas kaletoodna sidaas usoo sameeyey. aad iyo aad ugu mahadsantiin waqtigeena quruxda badan, ma ka daalay mahad celintiina dhammaantiinaba. waatana waa qaybtii ugu dambeysay oo hoose hoos waa pink iyo jaalo, laakiin kole kalarkooda ma dareemaysa inaad dartan. waayo waxa meesha ka buuxa waa sokor, bacda waxaan soo marsada waa sokor. maanta dhan leena saas ugu dul rafanayay, marka waxaa laga yaabaa istiraadi alla meesha wasaq badnaa, laakiin wasaq ma ahan, waa sokortii. marka wakaas sidaas sitaa iskugu duubaya. waxaana ka saaraya hooskeega. maasha allah siduu noogu soo baxan waa arki doontiin quruxda. maasha allah ha ku dheh. Soomaali waxay tiraahdaa waxaa lagu rafaadin ma lagu dheefsado maano. markaas ahay alxamdulilah waa soo dhameeyey. sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay. maasha allah ma laga sheekeyn karaa ku dheh. walaasheeda markay aragtay aaday ugu faraxday, aadayna u jeclaatay. maasha allah muhiimadana waxay ahayd yaraanta faamilkeena ka faraxsiiya. salaam.